بسم الله وقتك وير أوجي كل دمان دتك كسوق قيب قلي سيود الدنيهين قلياش الدولة ده قلها وزير ده قلها أقل كسرة إيو قلها شعبك سراكيش سرة الدولة ده جنانا ده وبدن تلياشي دمان مرتي شرفت كل الدول إيكر سوق يبقى شيء مناسبة آد قيمها أوله اللي على مسار أيو أمان إلهه لو شاعنا يمرشح نمديسة مدحوينه عبد الدار سيد الوجوع ذي أنا برلمان أنا كان تاجل فيرنا إن مجورتي أدوات كوسي أنا وكوسيني ما دام أبوانك وكصحيحي إن الوجوع ذي أنا كان بحبك ما قبله بعض الصحافة ده يجودهان سلامة إسلامك يعني يقول سلام يا أنغو دمان أنت كسو غيب بشيء هذانا وقام هذا علينا إنه سيد الديران حرمة له أباب الكفي عن له إن مرخاتي قال كنو قنو حفلة ما أنت حرمتك أوكي هاي مدحوينيه وحكسو لسي قل مدك وهاتنا أنغا نغمد أبهدنا inkastoo dhinaca ciidamadan ay tirsanayaan mudane Cabdi Xasan Cawaale Cabdi Qeybdiid oo haatana dastuurkii hadii lagu kala bixi lahaa iyo hadii kala gacanta noogu haya mudane yar iga raali ahaada hadii aan xoogaa yar aan si taraaraxane oo aan talax tago saaxiibkay iid la yuusan mikrofoonka ku soo boodine maanta kaliya wax ii tari doonto oo mudug aan ka helayaan rabaaye inaan ka faa'iideysto in adeeg waa Soomaaliya ugu maanta oo kale u malayn maayo maamaayihii wax badan anaga laftirkeena aan eednay afdaboolan dahab inaysan boos uga banaanin meesha marka si kastaba ahaatee galmudug waa laga taariikhiyay qof baa looga hadlay dadkii wax badan ee dhexgalayne sida taliya indha qarshe oo hadda ka hadlayay waa la qabnaa maxay yeelay ahlu maka adra bi shi'abiha asiga mudug ka yimid anaga inay mudug iska soo fiicnaanayso hadday iyada fiicnaatana Soomaali ay fiicnaan doonto nabadana markaan ay soo dhawaatay saddex arimood ayaan ka shidaal qaatay waa mare baarlamaanka Soomaaliyeed waxa quraanka noo akhriya nin saaxiibkeena reer mudug oo geesay leeyahay geesay maalintuu maqan yahay nimanka quraanka noo akhriyo way bilaabayaan way dhameynayaan saaxiibkay seeraar ayaa ka marxaati ah laakiin geesay rubuc saac oo wacdi ayuu noogu daraya ilaahay ka cabsada war sidan ma adduunyo waa laga tagayaa markaas waxa la abbo hadii bareer mudug maanta Allah laga cabsada ay leeyihiin adduunyo marka inay soo toosayso meeshaas aad ka garanaysaa haddana waad arkayseen oo meesha inta soo istaagaysay inta uu General Yusuf indha cadde uu dadka uu wacdiyay nin wacdiyay male isaga khatimay halkaas mudanayaal anaga reer mudug horta warkooda nagu soo hormaray laakiin barashadooda nin walba intuu ka bartay ayuu hadli karaa ayadoo la leeyahay reer muduga ayagana ka alla magan la'aantoodana ka alla magan nin walba marka reer mudug oo maanta degan koonfur waliba dhulkan xaalkiisa Allah og yahay barasho ayuu uga baahnaa anaga dadkii barakamaleydi markay tibad sagaashameeyadii yaan wax ku darsanaa leys wada yiri aniga nin saaxiibkayga Sheekh Jaamac la yiraahdo waxaan niri xaaladan dadaanan dadow dad ma tahay wax lagu ma darsan karee rag ku dhicin kara waxna ku dhicin kara wax lagu darsadaa anaga wad ogtiin saaxiibkayga Sheekh Jaamac reer mudugan wax ku darsan
وانا كل بان بلس لكن رجع شيخ جامع نوقف صدايو من مرحوم او عبد احسن عوالق قيب ديدي اي رك صاحبه ودا هايين مولد معان اللي يجري ايا نغا فجيه رغبا waxay yiraahdeen sheekh jaamac miyaad dhihi rabtaan waa nin shiidla ah oo reer jowhar ah mawlida wuxuu yiri ha anaaba kalaalkayga ilma adeerna aan nahay rakhayl guud le aw umaray degaan waliba markaas war adeer uu naga daaliyay sheekh war mawlida uu naga daa ma idinka jaamac la baxo way maxaa noo diiday way war naga daa jaamac lama baxay hemaano sheegtid jaamac daa anaga la baxna maxaa dhibow leeyahay anaga bab inaadan la baxaynin hadaba ma ku sheegaa hiri goortaan jaamac la baxnaha markii cidda awees la baxday aan unukan la baxnay marka hada reer budug iyo anaga istixgalkeen waxaad ka dareemaysaan nin reer mudug oo awees la dhahayo iyo nin anaga oo jaamac la dhahayo marka halkaasaan ku mataanaysanahay waadna ogtihiin oo meelo far badan oo haddaad maanta aad si tixraacdaan islaan reer afgooye ayaa waxay maqashay meeshii inta asluubta iyo inta u dhaxayso ee ay ahayd maartay la dhihi jiray tabeelaha sheekh ibraahim asluubta oo maalintii la leeyahay meeshan baabuurta afgooye laga soo raacayo galmudug 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 galmudugna inta ka taala ay tii tabeelaha sheekh ibraahim iyo asluubta inta u dhaxayso ariiri amaan limbi ariiri inta maguurta baalburgu iyo adiga hiliwaanay aad wareegayso ayaa meesha la camiray way meeshay soo galaan waa barakaysan tahay waxaad leedahay meeqsana la deganay markaa runtii horta in wax laga barto mudug waxay ku jirtaa faa'iido ballaaran Soomaalina waa sidii loo sheegay meelaan ayaga ku jireen maba nuureysaba saaxiibkayga xasan cadde ayaan ingiriiska ku arkay xasan caddow haye ii waran caafimaadkaada haye anigu xaafadan baan deganahay uu yiri waa saaxiibkayga wariyaha meeshan Soomaali cable madax ka haye xaafadiina magaceed wuxuu yiri cadaado adana london iyo cadaada wallahi waxaan reer mudug joogi lahaayeen kun 884 ingiriiska dhul Soomaali u leeyahay dad ma basiyakiisa laga hadalaa Zambia tagay haddana Lusaka gooray galabtay saan wareegayno waxa yiri xaafadda Soomaalida idin geynaya sidii loo waday xaafadii Soomaalida la geeyay xaafadan magaceeda ceelasha biyaha yar marka adduunyada ninkii gurigiisa ka soo rag dheh ninkii guri kale ka soo ran karoone dheh oo reer mudug inay wax ku soo dhiciyaan maahane haday ku dhacaan hataa waxooda wax dheefleed ka sugaysa adiga wax umbaad ka sugaysa kuma ka joonay sidaagtooda si kastaba ha ahaatee annaga hadda gobolka Shabeellaha hoose xilwaano badan ayaa meesha aan ka nimid maadaama chance fara badan oo annaga aan bixinay reer mudug oo laga bilaabo ilaa iyo ceelasha biyaha ilaa iyo hadda galmudugtii oo cusbayd iyo ilaa iyo gobolada hadda ninkii lafta gareena wuxuu yiri madaxweyne Abdidheer in sheek unin hadda wala ninka daro unin wala ninka daro adiga waxa laga soo hayaa madaxweyne Abdidheer على الأقل وزير كبيرة حتى إن كونفور قلبي تنفذه أنا جنسي هوسن كوشيجينا أنا جنسي هوسن كوشيجينا كونفور قلبي هذا لن يسمى بأهانين شبيلا هوس سيجارة ورونو وعي المعامل كمشي وكبدين هاي dadka ay sida fiican aad isu dhexgasheen oo la isbartay ilaa iyo wagi sagaashameeyadii iskaba ilooway hatta taariikhdii la dhihi jiray SYL marka la doonayay tuulada aniga aan ka imid mareeray iyo sabiid yaano la yiraahdaa maraan taariikhda qorayay SYL maxaad ku heesi jirteen aan yiri markaasay waxay yiraahdeen Ali Nuur ninkii caayiyo Cabdillaahi Ciise arabkan ka goohayna cadawgayna waaye waad ma ogtihiin deegaankaasi
وماشي وكسو جيدو قدوميه SYL شيخ عبد القادر سخاء الدين خليف هودو معلن انت صوتن marka hadde cid ogaada qaaranka hadda la isku darsanayne hore u soo jiray hal xoojiyaan idin leenahay wasiirka beeraha iska diyaariya